بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa dhammaan bulshada reer Puntland iyo tan Soomaaliyeed ugu horeyn ka muwaadin ahaan waxa waajib ugu ah inaan ka hortagno saansaan walba oo muujinaysa in dib loogu noqdo tagtadii xanuunka badnayd laguna dhaawacayo midnimada iyo wadajirka dalka wiiqaysa geedi socodka dib u heshiisiinta iyo dawlad dhiska haddaba waxaan doonayaa inaan si kooban ugu iftiimiyo bulshada reer Puntland arrimaha ay isku hayaan Puntland iyo dawladda federaalka ah ee soo noqnoqda inta badan waa markii labaad ee aan mowduucan ka hadlo waxaana ugu wacan muhiimadiisa iyo sida aysan bulshadeenu u dhaadanayn meeshu sarta ay ka qurusan tahay inkastoo aan uga hadli doono si ka duwan sidii hore waxaan xoogga saari doonaa waxyaabaha aasaasiyaadka ah ee la isku hayo waxaan aad ula yaabaa dadka reer Puntland mustaqbalkoodii iyo masiirkoodii weeye waxa miiska saaran balse waxaad moodaa in ay weli bulshada hurdo oo aysan si dhab ah u fahansanayn waxa la isku hayo ama ay u qabaan in madaxweyne Dani iyo madaxweyne Xasan in ay si shakhsi ahaan ay isku hayaan arrintu sidaas ma ahan waxyaabo masiiri ah baa la isku hayaa muwaadin dhagahaaga iyo amaahi imaqal waxaan rabaa inaad si dhab ah ii fahanto anigu ma ahi siyaasi xil haya hadda waxaan ahay xubin rayid ah codka aan ku hadlayo waa kii shacabka waa kii qadiyadda Puntland waa kii mabaadiida asaasiga ah ee dawladnimada reer Puntland waa codkii dastuurka Puntland waa codkii xeerarka Puntland waa codkaygii muwaadin waxa aan ku hadlayo waa masiirkeennii dhammaanteen ma ahan dan gaar ah waxa aan ka hadlayo ma ahan danta xukuumadda madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ee hadda joogta waa danta Puntlandtii weyneyd ee 1998 la aasaasay muwaadin yaysan isaga qaldamin qadiyadda dawladnimada Puntland iyo xukuumadda mandate leh ee laga yaabo inaad ka aragti duwanaan karto waxa loo baahan yahay in aragtida dawladnimada ee reer Puntland aad u fahanto si qoto dheer muwaadin 26 sano ka hor dawladnimada Puntland waxa ay ku timid cudud iyo aqli waxaana ku baxay qiimo badan waxa loo sameeyay in looga samatabaxo natiijadii xanuunka iyo aramida lahayd ee diktaatooriyadii dhacday ay dhashay si kale tirisnimo dambe aysan u suurtoobin waxay Puntland horseeday nidaam federaal ah oo waxna la wada leeyahay waxna la kala leeyahay dhanka kale Puntland waxay aaminsan tahay in midnimada iyo dawladnimada Soomaaliyeed lagu gaari karo oo kaliya si nabadeed oo wada tashi iyo is-ogol ku dhisan wixii intaas ka soo hara ama lid ku ah Puntland diyaar uma ahan mana aqbalayso inta si miyir leh arrimahan masiiriga ah si dhab ah looga wada hadlayo Puntland waxay sii wadanaysaa horumarkeeda gudaha marka laga soo laabto xayndaabka sharciga Puntland diyaar bay u noqonaysaa doorkeedii sharafsanaa ee ay kaga jirtay dawlad dhiska Soomaaliyeed intaas weeye ay dawladiyada Puntland ay ku dhisan tahay haddaba waxa ka soo horjeeda aragtidaas ay ku dhisan tahay dawladnimada Puntland ee ah maamul baahinta iyo federaalka waxa ka soo horjeeda aragtida xamar taala ee ah dawlad dhexe oo maamulku urursan yahay iyo aragtida Hargeysa taala oo ah gooni goosad aragtida Hargeysa ha inoo dambayso waa mid Somaliland ku kooban oo qaab loo wajahalay xilligeeda balse aragtida xamar taala qatar ayay ku tahay Puntland iyo xataa dawladnimada Soomaaliya oo dhan maadaama ay horseedayso kalsooni darro isku dhac fashil ka geed socodkii dawladnimada ee socday iyo dibdhac aad iyo aad u badan haddaba aragtidaas xamar ku xoogan waxa iska hor imaanaya nidaamka lagu dhisay dawladda federaalka ee xamar caasimaddu u tahay istiidadaas ayaa keenta in dawladda federaalka ah
iyo dowladda Puntland ay iska laalaadaan oo ay isfahmi waayaan sababta oo ah laba aragtiyadood oo iska soo horjeeda baa ishardinaya labada aragtiyadood teebaa saxan ma ahan doodu ee waa labada aragtiyood teebaa sharci ah sababtoo ah doodu ah yaa saxan la isla soo dhaaf dowladdii federaalka ee embagaati lagu soo dhisay 2004 ee dastuurkeedii ku meel gaarka ahaa 2012 la ansixiyay waxay qabtaa aragtida nidaam federaal ah baarlamaani ah oo maamulku baahsan yahay waana aragtida ay Puntland ku doodayso oo ay u taagan tahay haddaba arrinta sidaas iyadoo ay ahayd marka la kala aragti duwanaado ugu dambeyn waxbaa la isku qancin jiray oo xiriirku waa soo wanaagsanaan jiray labada dhinac balse hadda dowladda federaalka ah ee uu madaxweynaha ka yahay Xasan Sheikh waxa ay ku adkaysanaysaa jid qarda jeex ah oo baalmarsan xayndaabka sharciga ah iyo nidaamka federaalka ah Xasan Sheikh waxa uu baalmarsan yahay habraaca shaqo ee golaha wadatashiga qaran ee soo baxay 31 Oktoobar 2022 mabaadi'diisu guud ay budhiga u ahayd golaha oo kala ah 1 heshiis loo dhan yahay 2 tala wadaag iyo wada ogol 3 hanaan ku dhisan lahaansho iyo daahfurnaanta isla xisaabtan 4 sareynta dastuurka iyo sharciga haddii uusan Xasan Sheikh baalmarin habraacaas iyo qodobada dastuuriga ah ee waafaqsan mabaadi'daas ma dhacdeen in xiriirka Puntland iyo dowladda federaalka ah uu xumaado sida uu hadda u xun yahay ma dhacdeen in dastuur cusub oo ka duwan kii ku meel gaarka ahaa oo baarlamaanka u ansixiyo run ahaantii Xasan Sheikh waxa uu dowladnimadii ka dhigtay shirkad gaar loo leeyahay wuxuu kala diray golihii garsoorka ee Soomaalidu heshiiska ku ahayd isaga oo doonaya in uu ku bedelo golo garsoor oo uu taladiisa Muqdisho ay ku urursan tahay waxa uu siyaasadeeyay mashaariicdii Puntland u soo mari jirtay federaalka oo ah waxa kaliya ee Puntland khuseeya oo dowladda federaalka Soomaaliyeed gacanteeda soo mara yadiina wuu ku diray Xasan halkaas waxaa ka cad in aan la isku aamini karinba dowladda uu madaxda ka yahay Xasan Sheikh maadaama uu siyaasadeynayo waxyaabo aan waligood la siyaasadeen isaga ka hor arrintaas Puntland waxay uga jawaabtay in ay beesha caalamka ay kula shirto magaalada Nairobi oo ay kala hadasho si gaar ah in loola macaamilo maadaama aysan jirin dowlad federaal ah oo si miyir qabta oo mas'uuliyad ay ku dheehan tahay u maamuli karta mashaariicda iyadoo aan siyaasad uga faa'iideysanayn dhanka kale Xasan Sheikh waxa uu hareer maray saami qaybsigii iyo matalaadii qabiilada Soomaaliyeed isaga oo si gaar ah ugu eexday reerkiisa sida aad ku aragtaan shaxda beelaha iyo jagooyinka beesha daarood oo ah dadka ugu badan ee Puntland dega waxa la siiyay wax aan u qalmin shaqaalaha dowladda federaalka tiradoodu waxa ay gaaraysaa 5751 qof marka si cadaalad ah 4.5 loogu qaybsado waxa beesha daarood ay yeelan lahayd 1278 qof oo u dhiganta 23% haddaba taas beddelkeeda dhammaan shaqaalaha dowladda federaalka ah intooda daaroodka ah waa 420 qof oo u dhiganta 7.3% waxaana ka maqan beesha daarood 858 jago ama boos oo u dhiganta 15.7% halkaas waxaad ka garan kartaa in si ku talagal ah loo gacan bixinayo reerkaas iyadoo oo Puntland laga urinayo waxay ahayd in dowladda federaalka Soomaaliyeed ay yeelato mas'uuliyad ay ugu cadaalad fali karto beelaha Soomaaliyeed ee kalsoonidooda ay soo kabanayso iyadoo aan la siyaasadayn saami qaybsiga iyo matalaadda bulshada Soomaaliyeed Soomaalidu waa qabiilo isu tagay oo waliba dagaal sokeeye soo maray haddaba inta bulshadu ay ka bislaanayso oo ay ka gaarayso Soomaalinimo wax ka sokeeya in aan la qiimeyn waa in geedi socodka dib u heshiisiinta iyo dowlad dhiska lagu ilaaliyo waaqiciga hadda jira ee saami qaybsiga qabiilka xilkasnimadaas
way ka maqan tahay dowladda uu odayga ka yahay xasan sheekh maxamuud dhanka kale 16 bishan abriil aynu ku jirno sanadkan 2024 waxa uu iclaamiyay shirkii golaha wadatashiga qaran iyadoo ay ballantu ahayd in 20 bisha ilaa 21 inuu qabsoomo balse taas beddelkeeda way socon weyday arrintaas waxa uuna abriil 19keedii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu soo saaray war-saxaafadeed lagu leeyahay dib ayaa loo dhigay shirkaas arrimo farsamo ogood sababta u weyn ee gabadhacleyntaas keenaysa waa in markii hore xasan sheekh uu abaaray meel aan tub ahayn oo soo xirmaysa dabadeedna uu miirsaday markii uu arkay in aysan daw ahayn meesha uu aaday haddaba aan muuqaalkan duubayno waa 25 abriil 2024 xalay oo ugu dambeysay waxa uu soo saaray warqad isbihin ah oo la rabo in lagu beer laxawsado ummadda reer Puntland waxa la oran karaa waa ilmada iyo xaaska xasan sheekh waxa uu eg in uu ku soo noqdo xayndaabka uu ka booday markii hore waxaan leenahay xasanow edegta ku soo noqo hortaabaa la shubi jiray ugu dambeyn waxaan raali gelinayaa cid kasta oo aan dareenkooda waxyeelay ulama kasin ujeedkaygu waxa uu ahaa inaan toosiyo dowladda Soomaaliya ee wali socod baradka ah oo laga daayo fasahaadka siyaasadeed waqti badanna aan lagu lumin iska daba wareega waxaan si gaar ah ugu iftiiminayaa dadweynaha reer Puntland waxaan sidoo kale hoga tusaaleynay dowladda Puntland ee uu madaxweynaha ka yahay Siciid Cabdullaahi Deni raqba waa ku raggeed ee talayaysan idin seegin idinma seegin mayse waad u jeedaan dagaalka lagu hayo dowladnimada Puntland gar waa loo islaame madaxweyne Deni waa ku mahadsan yahay sida uusan gorgortan uga gelin arrimaha masiiriga ah ee dowladnimada Puntland waxaan u rajaynayaa dowladda Puntland iyo shacabkeeda baraare iyo barwaaqo